صدرتي وريهنا لول حسين علمي madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya galinkii dambe ee maanta ayaa ka hadlay isbedelada dhanka horumarka ee ka jira wadanka Soomaaliya waxaana uu sheegay in rajo weyn laga qabo hiigsiga 2016 in doorashooyin ay ka dhacaan dalka isla markaana maalmaha soo socda la qaban doono shirar wada tashi ah oo arrimahaasi looga hadlayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed oo ku aadan in aanay ku niyad jabin waxyaabaha siyaasadeed ee baryahan ka dhacaya dalka Soomaaliya dalkaani waa ka dhamaatay rabitaankii ama cid ku fikiraysa haday jirtay diktatoriyad inta laga abuuro in uu soo baxo xukunka nin iskale ama dad gaar oo iskale ama gobol gaar oo iskale xilligaasi uu soo dhamaaday maanta Soomaaliya kama suuroodo diktatoriyad inay ka dhisanto maanta Soomaaliya kama suuroodo maamul aan raali laga ahayn inuu talada haayo marna kama suuroodo waxaan ka shaqeynaynaa oo aan ku mashquulsanahay waxay tahay inaan dadka Soomaaliyeed u diyaarino qawaaniintii maxaan ku raadayay iyo shuruucdii ciyaarta dawladnimada ee ciyaarta siyaasadda lagu wada ciyaari lahaa oo aan la isku dardari lahayn la isku lana dhici lahayn la iskuna darrawsan lahayn marka ma awoodi karno in maxaan ku raadayay waxaasina laga mashquuliyo ma awoodi karno in maxaan ku raadayay jilbaha inta nala qabto meesha aan joogno nalagu haayo xafiisyada dawladda hadii aad shacabkoow aad kala kulantaan waxaan raali ka ahayn inaad kala hadashaan ama aad ka hadashaan aad xaq u leedahay laakiin haddana macnaheedu ma aha maalintii u dambeysay wixii kala daateen horaan u soconayna hadii baarlamaankeenu marka uu shaqeynayo buuq uu ka dhaxyeero macnaheedu ma aha in wixii kala daateen in meesha lagu kala tagay waa dimuqraadiyadii oo sameysmayso dadaalkii iyo dawladnimadii oo dhismayso waa dadka Soomaaliyeed waxyaabahaas dhacdooyinka oo ama aan soo sheegay qaarkood iyo kuwa kale badan hadii ay arkaan waxaan rabaa in aanay ku niyad jabin in aanay u arkin in ay wixii kala dhacayaan sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay wado dadaalo dheeri ah oo lagu doonayo in lagu xoojiyo arrimaha maamul u sameynta gobolada dalka dawladdu waxa ay wadaa dadaalo dheeri ah ku wada samaysanka maamulada magaalada Baydhabo muddo dheer maamula ka soo socday muddo kooban oo hakad yar ayaa dawladdu gelisay si loo sameeyo wada tashi looga wada tashado waanu socdaa wada tashigaas dhawaana processkaas dib ayuu hadana u hinqanaya u dhaqaaqaya hadii alla yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxaan guulo dadka deegaankaas degan ay raali ka wada yihiin dawladuna ay ku taageerto waxa muhiimka ah oo dawladdu ay daba socotaa mar walba waa rabitaanka dadka waana fududeynaysaa waana ka shaqeynaysaa dawladdu waxay ka shaqeynaysaa in loo dhamaado samaysanka maamulka cidii ka maqan lagu beeriyo cidii ra'yi qabta ra'yigeeda la dhageysto kadibna horay loo socdo oo maxaan ku raadayay maamulkii oo dhismaha hadii alla yiraahdo sidoo kale gobolada dhexe oo ayadana maxaan ku raadayay is-afgarad laga gaaray sameynta maamulkooda dardar cusub ayaa la gelinayaa usbuucyada iyo maalmaha soo socda hadii alla yiraahdo ayaduna waxaan rajaynaynaa muddo dhow inuu halka ayaduna ka soo baxo oo ka dhismo maamul inta dhiman ee gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo Banaadirna wada tashiyadooda way socdaan dhawaan ayagana tallaabo cad oo hor u socoto ayaa laga soo qaadi doonaa ugu dambeynna madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha dawladda uu yahay in isku dhaf lagu sameeyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya isla markaana hawshaasi la bilaabi doono dhawaan dawladda Soomaaliyana ay aad iyo aad ugu xeydxeydan tahay halkaas shay inay maalmaha ka mid xaqiiqo waa maxay waa isku dhafka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliiska Soomaaliyeed ciidamada inta federaalka hoostimaado ee ciidamada federaalka ee ciidamada qaran ah laga soo bilaabo Raas Gambooni ilaa lagu geeyo Raas Casayr dawladda Soomaaliya waxay rabtaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliiska Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda ciidanka asluubta heer qaran ah oo dhisan in la helo waa dhisan yihiin haddaba laakiin la isku daray oo ciidan kasta oo meel joogto koox unug kasta koox kasta yani horin kasta yani iyo inta ka sii badan ciidamada dhammaan markay meel soo istaagaan in laga wada arki karo Soomaaliya rabnaa Soomaaliya inay ka dhex muuqato dhammaan oo laga wada arki karo gobolkan kii ka yimid gobolka kale kii ka yimid kan meesha ka yimid reerkan kii u dhashay reerkaas kii u dhashay dhammaan ayagoo isku mid ah oo hal ciidan ka wada tirsan hal unug isla ah hal koox isla ah hal horin isla ah hal yani urur isla ah oo guuto isla oo saas u wada jiraan rabnaa in la arko
hoggaanka ciidamadaas sida noqon doona asagana haddii alla yiraahdo. shirka jaraa'id ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo arrimo badan uga hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii dowladnimada Soomaaliya ay u hirgeli lahayd isla markaana horumar ballaaran u sameyn lahaa dalka. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV.